dumaashigeed marka wiilku xataa waa dumaashigeed waxa la sheegay inay 3 jeer hore xirtay haddana markii afraad u yahay hadda 6 bilood ugu jira xabsi ha ugu jira xabsiga midda ka daran ay meesha u gelisay inuu cid balahaynba oo wax cida iyo wax ka dameeya iyo wax daba socda iyo midna aan lahayn sida loogu hayo dadkii meesha joogay ama maxkamadda xabsiga haystay ama dadka ay ahayd qofka ilaa sharci wuxuu leeyahay 24 hours in maxkamad lagu soo taago iyaguna ay ka aqbaleen waliba maxkamadii ugu doodayaan in maaragtay iyada teed socoto oo dadkii la handado ay maxkamadda dhexdeeda waliba rabaan wali xaq darada inay ka wadaan waka adeerkiisa qaba lagu leeyahay adeerkiis bal ilaah baan kugu dhaariye wiilkiisa garabkiisi iska badaa qof kala la rabay inay badbaadiso ma qofka ma ka sugi karaa marka inaan waxaan u dhiibanay ay inoo hormariso ma ka sugi karaa marka wixii aynu rabnay inay ka shaqayso inagoon iyada xataa cayn inagoo iyada xataa maaragta bal fiirinayna bal iyada nafteeda u nasteexaynayna waa hooyo wiilka waa wiilkeeda wiilkay dhashay way walaalo yihiin waa mar waalid bay u tahay isagay ahayd inay kuweeda ka hormariso midaas waay marka midda aynu la deglaana wiilkii isaga ahaa baa xabsi ugu jira markaasay isku dayaysaa waliba maxkamadda dhexdeedii iyadoo xil u adeegsanaysa ama u adeegsanaysa awood u adeegsanaysa aadan soo dhawow aqoonyahanka aad baan kuu salaamaya walaalkay iyadoo u adeegsanaysa inay caburin ku samayso inay maxkamadda dhexdeedina ay la qaataan oo ragga maxkamadda joogay qayb ka mid ay arin iyada si ay u qanciyaan ila iyadu xil bay haysa xogaana waa laga helaya xogaana maaragtay wixii la rabo waa laga fushan karaa taasa la fiirina laakiin lama fiirinayo qofkan ay iyagu u shaqaynayaan qofkan ay iyadu u shaqaynayso intaba lama fiirinayo bilis share gareey barnaamijka bilis share gareey sababta in haysata waxa weeye qofka dulmiga kama celino qofka aynu xilka u dhiibanay markaynu dhahno war waad qaldantay cadaab baa ku socotay ka joog sidan ku doortay sidan ma wax kale inuu aragnaa war qofka ina cadaabta ka celiso adiga dan kugu jirtaa isaga dan ugu jirtaa marka ilaa baan kugu dhaarshay ilmahaagi markaad xirto ama qofkii adiga xurmada ka mudna aad ku xadgudubto maxay tahay adiga waxa aan ka sugayo maxay tahay adiga cadaaladda iyo inaad wadan ii difaacdo iyo inaad wadan ii ilaaliso ma ka helaya waa maya runta hadaynu isu sheegno waa maya waay that's way marka wadankeeni loo qaatay wadankeena waa la qaatay rag Soomaaliyeed iyo dad aynu madax ka dhiganay iyo dad aynu xukuumad u dhiibanay iyo baa qaatay laakiin waxa nasiib daraa gabdhihii iyagu ahaa inay wadanka difaacaan iyagu raggu siday wuxu dareemaan aan u dareemin gabadhu way ka duwan tahay nimanka hadday xil hayso iyo hadday xil hayn gabadhu wiilasha way ka duwan tahay because gabadhu waxa ninku dareemin bay dareentaa sababtoo ninku ma walaco ninku ma foosho ninku 9 bilood ilmo uur kuma wado ninku ilmo ma barbaariyo oo ma soo saaro ninku ilmo ma hadal baro ninka isaga la totoosiya isaga mid dulfa oo la nacay inta meel laga soo qaado suud iyo shaad loo geliyo la tirtiro kareem la mariyo bahal calaanaha oo la tuuray gabari ka soo dhigtaa heer sare oo marka tolkiis iyo adeeradiis ay daba ordaan gabar baa ka soo saarta laakiin gabadhu intaas way ka duwanta gabadhu waxa way waa midda wax korisa waay waa midda problem haduu jiro raadisa waay waa midda ilmuhu haday dareer badan yihiin ama dayacan yihiin ama siiga badan yihiin inta masquul geyso u qubayso soo tirtirto dhar nadiif u soo xirto iyo qurux badan oo carfaayo oo maaragtay labisan halkaas soo istaagta oo marka qof kasta uu xambaarsado laakiin ma aha midda iyadu xaarka ku soo shubta midda iyadu kaadida ku shubta oo markay soo istaajiso dadku ka cararaan ma aha gabadha marka gabdhihii xilka loo dhiibay ee la rabay iyagu inay hore u socdaan baa maanta wax dulmaaya laba arimood baan rabaa marka inaan gabadha dhaho horta gabadhan waxaan leeyahay laba arimood ba hadaanan hadda iska gaarin adigay ku daran tahay walaashay adigay sumcadaada u daran tahay adigay karaamadaada u daran tahay waa mido hooya tahay ilmaad dhashay wiilkaaga waxaad jeceshahay inuu wax ku barto inuu meel gaaro inaan la dulmin inaan dib ku dhicin baad jeceshahay haddaad iska dayn weydo marka dulmka kaas aad la raadinayso wanaaga lama helaysid isagay ku dhici horta midda waa ku leeyahay marka haddaad wiilkaaga jeceshahay ama gabadhaada jeceshahay iyaga ka fakar sida aad u badbaadin lahayd ilmo wax ku tara oo hore u socda oo ummadda dhan anfacana ay u noqon lahayn iyaguna badbaada taas intaasan ka leeyahay midda labaad oo ku leeyahay waxay tahay
xil baad haysaa anaad ii haysaa wiilkaas aad dulminaysaa u haysaa kuwa kalaad u haysaa inaad xilkii aad u adeegsato maanta shaatigu igu jira maantaan wasiir ahay maantaan xoog leeyahay maanta hadalkaygu soconaya maantaan xafiis fadhiyaana waxa weeye ma jirayso annaga xilka noo haysaa kaasna waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dadka ku shaqo leh waxaan ka codsanaynaa gabadhaan nama matasho mana fiirsan karno mana rabno inaan gabar ahaan u ataagno oo dib nooga gaaro oo intaan halka u soo fariisano iyadoo gabara aanu dhaawac u geysano ma doonayno marka xilka idinka noogu dhiibteen annagayna noo haysay mana u aragno qof noo qaban karta anigu kollay nadiif qaran ahaan uma arko marka waxaan codsanayaa ra'iisul wasaaraha xilka adaa u dhiibtay bal horta gabadhaas annaga waxaan qanciya shacab iyadoo ah maxkamad aan la korree gabadhaas ina xilka ka qaado gabadhaa wasiirnimada nooma hayn karto baarlamaanka ciddi ku soo darsatay iyo ciddi u dhiibatay iyo qabiilkay ku matalaysa ha ugu joogto kuma haysano because baarlamaanka maalintii laga gudbo oo nin iyo cod la gaaro maalinta ha noo soo marto laakiin hadda midda aan ku haysano oo aan leenahay gabadhaasu sidii aan rabnay nooma matalin way noo adeegsatay xoog bay noogu raadsay quwad bay noo adeegsatay waa midka wasiirnimada ah marka wasiirnimadana ra'iisul wasaare khayr waxaan leeyahay haddaad maqasho hadalkayga ama qof secretary-giisa u maqlo bilis waxaan codsanayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in loo geeyo waa in gabadha xilka laga qaado iyadoo shacaba aan maxkamad la koro laakiin iyadoo bahashi huwan in intay maxkamad timaado noogu bootayso ragga iyada sabood gareeyay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa ninka cali xalaaneyn la dhaho ee maxkamadda ka tirsan ee cadaaladda in isaga aan loo dhiibay fahmay oo inuu ummadda u dhaxayso fahmay ninkaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaana ku leeyahay ummadda taariikhduna way ku xusi ilaahayna wuu ku xusi maalinta aad dhimato ilaahay wuu ku jeclaan sidaanu kuu jeclaanay sidaad u farxad gelisay dulman sidaad ugu hiilisay baa adigana ilaahay kuugu hiilin waa mid aad adigu isu anfacday oo adigu aad isgaarsiisay in ilaahayna ku jeclaado ummadiisuna ku jeclaato waana mid naftaada aad ugu danaysay ee mid aad ummad ugu danaysa maaha sababta xilkii aan kuu dhiibanay baad dareentay ina annaga nagu matasho waxaan kaloo codsanayaa nimanka kale ee xilka maxkamadda joogay ee isku dayay in ay qof bini aadan ah oo dhalinyaro ah oo waddanka dhalinyaradii la rabay inay askar noqdaan dhalinyaradii la rabay inay cadowgana weeraraya ee waddankii qaatay naga celiyaan xabsiyada gelinaya oo meesha ku haynaya oo weli u doodaya in xabsiga uu ku jiro inuu dulmanaado iyagana in tallaabo laga qaado ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waan ka codsanaya labadoodaasba xilka nooma hayn karaan marka anigu aanan qofna cambaarayn anigu kanaan leeyahay oo ku doodaya waxaan leeyahay oo la hadlaya dowladda waxaan leeyahay war cadaalad haddaa rabto inay shaqayso waddanku inuu xoroobo haddaad rabto ragga aad wax noogu dhiibaysaan haddii cabasho naga soo kiin gaarto waa inaad xilka nooga qaadaan anigu waxaan halkan cod dheer iyo cod gaaban ku dhihaya oo aanan la gabanayn gabadhaas la dhaho wasiiras fahmo muxuu ahaa gabadhaas xildhibaan maxay ahayd wasiirad fahmo la dhaho iyo nimankii maxkamadda joogay ee isku dayay inay handadaad ku sameeyaan iyagoo awood u adeegsanaya maxkamadeed dadkii yimi ee masaakiinta ah ee dulmanayaasha ah labadaasba in xilka laga qaadan codsanaya inta ila midka oo dareenkooda aan ku hadlayana taasay codsanayaan oo wanaaga dareemaysa waa haddii la rabo in adduunku hagaago waa haddii la rabo cadowgan iyo xumaantan inaga dhex beerantay inay baaba'do laakiin intaynu qarinayno inta aynu maradii markaan kuu geliyo maalinta aad xil raadinaysana aan shacab ku ahay maalinta aad xilka igu heshana aad igu tumanayso aniga baawarkii aad igu muujinayso meeshaad cadowga iyo dadkana soo weeraray iyo waddanka la qaatay iyo kuwa gadanaya iyo xumaanta dadka wada aad kala hortegi lahayd aad aniga aamusan ee dulman ee miskiinka ah een tabarta lahayn aad igula soo noqonayso adeer waxba maaragtay kaama dhegaysanayo farxiye kaamirada furo waa ku soo qabanaya farxiye daahir kaamirada furo inaad waxba iiman ba halkeenayso marka labadaasba nimankii maxkamadda wiilasha ku handaday familka ku handaday iyo gabadhaasba annagu xilkaasaan ku haysanaa kaasa annaga naga dhexeeya gurigooda hadday joogaan ama guryahooda joogaan xataa intaasna uma qabsaneen
waa in xilka laga qaadan leeyahay baarlamaan hadday ku jiraan iyo hadday xilal kale dad kale u hayaan iyagay u taallaa taa kuma haysano laakiin middan aan ku haysanaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cod dheer baan idinku leeyahay haddaad samayn weydaanna idinkaan maalinta yoomal qiyaamo inay haysanaa because annagaa iskale annagaa leh in marka maxkamaddii aan cadaaladda usoo dooranaynay ay gabar wasiira ama nin wasiira shaatigiisa igu cadaabto no ma yeelayo xabsiyada dadka ku jira ee dulman ee aamusan ee inta sidaasoo kale dulmiga loo xiray dulmiga inta loo xiray aan maalinna maxkamad intee lagu arkay qof 6 bilood xabsi iskaga jira 24 hours buu qofku xaq u leeyahay in maxkamad lagu keeno intee lagu arkay qof 6 bilood inta xabsi ku jiro haddana maxkamaddii markii la keeno loo hanjabo intee lagu arkay aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ninka la dhaho mahdi ninka la dhaho cali xalane aan ugu ducaynaya ilaahay waxaan kaaga baryaynaa haddaanu nahay hooyooyinka soomaaliyeed haddaanu nahay dulmanayaasha soomaaliyeed haddaanu nahay cadaalad raadiska soomaaliyeed haddaanu nahay gabdhaha halgamayaasha haddaanu nahay inta wanaagga jecel rag iyo dumarba ilaahay waxaan kaaga baryaynaa maalinta qiyaame iyo adduun iyo aakhiro sidaad cadaaladda u dareentay oo adigu xaq isaga ilaalisay oo ummaddaa dulman uga farxisay inuu ilaahay kaaga farxiyo waxa aanu u baahannahana waa ninkaas oo kaleeto waa cali xalane oo kale uma baahnin ragna hanjabe uma baahnin ragna aamusiya uma baahnin gabar hooyanimadii intay ka tagto nacaburisa uma baahnin waxaan leeyahay waa in dadkaa xilka laga qaado annagu intaasaan ku haysanaa baarlamaankooda kuma haysano cidihii soo doorto kuma haysan laakiin wasiirnimada iyo maxkamadda anay ii joogaan waa in laga qaado salaamullaahi calaykum abaayo salaam ya allah ku barakay ii soo dhawow seeta الله أباي معنتو أدنى الله كبرك قرحي أباي سيطها والله في عنا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله أباي كهالله مدوا جرو مدوا هذا إيو وحي كسعد حمر تاسوا إيو كسوق بقبينا يا مدة ما تياد إيتاب والله الله أو عن اللي واد كجرت كل مركان سوق لا سوق شوي لسه عتي خير الله كسيو ولا وحوي جبر وسيرة oo wasiirnimo inaga ma haysta la anaga doon xildhibaan ma aha tol iyo qabiil iyo 4.5 ma soo dooran kan anaga isla adiga le aniga dulmaha le oo awoodii adeegsatay wiliba tan aan la yaabay wiil nin adeer u qabo intay xirtay markii afraad ku yahay xabsi ugu jiray maxkamadii markii la keenay nimankii maxkamadda la joogay la rabay cadaalad inay ka shaqeeyaan ay damceen inay handadaan khayr allah siiyee nin cali xasan la dhaho oo isaguna kamid ahaa nimankii meesha fadhiyo maxkamadda awoodda ku lahaa uu diiday oo cadaaladii uu meeshaas uu cadaalad ka muujiyey labada arrimood baan ka hadlay maxaad leedahay ku soco arrinteedii horena waad la socotay hadalkayga gabadhu ma wasiir dawladda noo hayay fahmaa la dhahaa magaceeda fahmaa la dhahaa fahma wasiir xagee ka tahayna marka maxay saabsan tahay waa wasiirad waa kolley waana xildhibaanad waa qasab mar hadday wasiirtahay waana xildhibaanad marka waa wasiirad kolley dadkaa soo qori doona haddaay waa lasoo qoraayey waa gabar halkii anigu dee markaan maqlay waa wasiiradba xilkeeda dee meeshay ka tahana waxba inooguma hayso markay waalka u ahayd maxayba inoo haysaaba taas inay waxba inoo qabanin waaba iska caddahayba marka wiilka ma ehelkeeda wiilka marka ay xirtay 6 bilood ba xabsi ku jira 6 bilood shalay miyaa maanta baa maxkamad la geeyay maxkamadii baa isku dayda waliba inay ay maaragtay handado oo reerkii banaanka u saarto iyada kaliya ay dhageysato wiil maxkamadda ka mid ah oo cali xalane magaciisa la igu sheegay baa diiday oo yiri no qofka dulmanaha dadkiisu waa inay dhageystaan ninka qofkooda wax lagu eedeynayo marka laakiin nimankii kale oo maxkamadda jooga iyaguna cadaaladda laga rabay waxay fiirinayaan gabadhan xilkeeda iyo gabadhan maaragtay inay iyada qanciyaan laakiin qofkan dulmanaha uma muuqdo marka arrimahaas maxaad ka leedahay war soo qora gabadhu meesha ay ka tahay horta aad iyo aad aan uga xumahay tacaddi waddankeena wuu ka jiraa dhibaatooyin fara badan baa ka jira dhibaatooyinkaasna waxaan uga bixi karnaa inaan annaga waxa qaldan aan runta isku sheegno bismillaahi marka horta dhammaantiin waa idin wada salaamay dadka fareenka iyo faamiliga kula ana waan salaamay salaantii baan ka tegey waddankayagana wax badan oo dhibaato ah baanu arkaynaa madaxda la yahay waa la isugu awood sheegtaa
dadku waa isku caburiyaan xaq la iskuma siiyo in dhifa ma ahana ilaahay u naxariistay haddii nin xildhibaana uu wax kaa galo ha ka sugin waa habeen xala tegey haddii nin wasiir ah uu wax kaa gala ama dhibaato adii asaga ay idinkala gasho xasaaradda laguu sheega nadiifay oo la siday ka mid tahay kaa hoos bixin dadkaa lagu cunaa dulmanayaasha dadka dulmanayaasha waa dhibaataysan yihiin dowladduna intaas waxay la dagaalamaysaa cadaalad inay dadka ay u samayso ummad waxaan nahay ma aqaana wax laga sameeye aanan garan karinin midka madaxda iyo midka noogu hooseeya waa isku tumanaynaa ilaahay qadarkiis waa wax abaabiskeena ka mid ah baan anigu isleeyahay because waddankaa maanta adiga aad joogtid waxaa laga yaabaa qofkan waa madax iyo haykalkaasuu xisaabsan yahay inaan lagugu waxaynayna maxkamada hadday idinsoo kiin dhex gasho in la idiin kala xaq qaadayo laakiin waddankayaga looma kala xaq qaado dadka looma kala xaq qaado waxaa la yidhaahdaa waa isku tuntaan aad iyo aad baan oga xumahay dadka masaakiinta dad badan oo boqolaal ah oo waxaa jira nadiifoy oo loo awood sheegto oo guryahoodii laga haysto oo dhibaatooyin fara badan lagu haysto ayagaa sheergarayn doona nadiifoy annagu barnaamijka inaan u sheegnaan leenahay iyaguna ay dhegaystaan marka ayagaa iska sheergaraynaya haddii alla awoodda la ogolaadee ha soo farfadhiyaan meeshooda najaasto ya dadka aanu wanaag waxba kuma leh nadiifoy baryo waxba kuma leh bishaaro waa ku salaamay abaayo soo dhawow salaan boqortooyaan kuu taagnay adna barnaamijka waxbaad ka qayb qaadan doontaa soo dhawow nadiifoy anugu meeshaan hambalyo xoogle waa ka dirahaya hambalyada aan ka dirayo maanta taalooyinkeeniyo dhan baa la taag haddii gabadha xaawataa ka ahayd oo qurux badan ahayd ay tahay oo hadda kaala arag budkeedii iyadoo la ordaysa waranka dabada laga soo kii sarayba ninuu ahaa bismillaahi raxmaan raxiim nadiifoy waxaan waxirxirhaya iyo nadiifoy waa la isaga daba imaan doonaa dadku ay isku sii tuntaane midda kore maxamedow soo dhowow dhammaantiin soo dhowaada kulligii soo fariista anigu uma jeedin nadiifoy gabadhii uu ninku dabada xabadda ka suray maanta waa la soo taaga iyadoo budkeedii wadato dadkii xoraynaysa waa guul iyo gobonnimo waxaa la soo daayay sayid maxamed cabdulla xasan ilaahay jannadii udgooneyd ha ka waraabiyo waxaa la soo daayay axmed gurey ilaahay asagana jannadii ha ka waraabiyo gabadha aan soo sheegay ilaahay jannadii ha ka waraabiyo waxaa la soo daayay syl oo noo dagaalantay ilaahay adigana jannadii ha ka waraabiyo dadkaasoo dhan waxay u dhinteen xornimadii soomaaliya u dhinteen markaasaa maanta mid soomaali ah buu wuxuu rabaa inuu baddayadii iyo berigayagii uu ka gado wiilal yaryaroo saa gafuurka u qaniinayo hooyooyin bud la ordayoo leh gaalka madaxa jabi gabdhihii oo dhan baa ku jira boqoradaha soo dhawaada in leeyahay gabdhaha sheergareeya dhawarnaa sheergareeya gabdhaha sheergareeya maanta xaawataa ka waata la soo tahay jamiiloy soo dhawow adaa u jeeda anigu waxba uma jeedo jamiiloy soo dhawaada gabdhaha halgamaagayaashoodu soo dhawaada dhammaantiin dadka qaranka u duuliyow dowladoy dhammaanteen shacabka soomaaliyeeday war soo farfariisto meesha ku soo habsada ya maxaa kuu soo aharay gabadhan iyo wiilkan bal ku soco maxaad fikradoo gudbinaysaa maxaa ugu baaqaysaa gabadha adigoon inagoon maaragtay war gabadhan aniga maanta nadiifay aniga jawi kaliya farxad kalaa ii jaran nadiifay mid kale halkaan ka dir mid kale halkaan ka dirhayaa nin shiiqahoo culummada soomaaliya joogtaa maantay miyaa mase waa shalay video aan fiirsaday oo taliyaha ciidanka booliiska uu waddada u diiday oo ninkii saraakiisha ahaa uu u diiday saldhigga uu marayay ciidanku iyo shacabka dowladday ku dirayaan nimanka jooga isteeshinada iyo nimanka ciidamada haysta kulligood waa in jidka cadaaladda la keena dowladday dadka ku dirayaan waa dalaaliin waa diyuusiin
maxaa ku wara nimanka CID da ayaga caawaan u soo galaya ama habeen dambe hadii alla idmo barnaamijyo culus baan ka haya haddaan topic-gaagi gadaal aan ugu soo noqdo fahmo waa noo maxkamad fahmo waa noo maxkamad fahmo wasiirnimo kuma ahaanays Sheekh Yuusuf oo soo dhawow ma sha Allah waa algamaasan gabadhaas annagoon dib kale u geysanayn xildhibaankeeda iyada iskale qolaa ku soo dar laakiin wasiirka annaga inoo haysa mar hadday wasiirnimada inoogu sheegatay inay nagu dulanto oo waliba qof iyada ay waalid u tahay ay ku xirto oo maaragtay dhibka intaa la geysato oo maxkamadina ay garab ka hesho sidee marka annagu waxaan leenahay xilka in laga qaadaan rabnaa wax kale kuma hayso nadiifoy xilku markii adiga aad haysatay baarlamaanka markaad ku soo geshid qabiil beenaalahan bugta markii laga tago kitaabka jaamaca markaad gacanta saartay oo tiraahdo ilaahay magaciisa aad ku dhaaratid aniga iyo adigaba qofka ku jira inuu xaq noo soo ruuleeyahay kitaabka jaamaca uu gacanta maray cadaaladeeda waa inuu noo kala socnaada wasiirnimada xilka ay ku fadhidaa xilka ay xasaanada ay sheeganayso baarlamaanka ku fadhidaa waa dulliyad anigu naagta hadii mana dhaafayo haddii profilekeeda iyo adduunkeeda iyo waxeedoo saxa aa keentidna kama harayna naagtaasu waa in waxaan ka codsanayaa dowladda waxaan cod dheer oga codsanaynaa dadka baabi'inaya dadka dariiqyada u taagan dadka marasta iyo masaakiinta dowladda ku diraya waa in dadkaas maxkamadda la soo taagaa oo cadaaladda ninka labadan qofood markay wax isku qabtaan waa in ay cadaaladdu ugu asxaan farsaa labadoodaba inay u kala xaq soorto because waa maxkamad meesha fadhidaa maxkamaddu waxay meesha u fadhidaa cadaalad inay dadka u kala qaado ma ahana inay tiraahdo kana xasaanadu sidaa kana xasaanadu sida ma ahan aakhirana waa la isweydiinaya dowladda dadka yaan lagu dirin oo dadka shacabka ee dulmanaha ee dulmiga laga galayo iyo waxa dowladda la isaga horkeenaya ha la joojiyo oo qolada wasiirada u qaar baa qaa'imiin daalimiin ha la soo qabqabta ayaga dhan maxaa ku soo haray wiilasha dulman ee masaakiinta ana waan ka xumay wiilka la xirana waan ka xumay waa wiil Soomaaliyeed waa wiil qaranka wax u tari lahaa waxaan leeyahay gabadha aad sheegaysa haday jirto nadiifoy annaga dhan baa caawa ku wada waa siday tahay waxaan ku soo dirayaa fiidiyooga waan hayaa oo ku soo diraya luqu kugu soo diraya wallaahi waxa aniga iga yaabiyay gabar hooyo wax dulmayso kow hooyo xil haysa labo hooyo haddana qofka ay dulmayso bal dad kale waaba la qaadan karaa waxa la dhihi karaa waxbaaba moogtahay waligeeda la isdulmin jiray laakiin ilmahaagii ilmo la dhashay inaa intaa xirto meel geliso aad tiraahdo 6 bilood uu meel kuugu jiro aad ku qorato oo dhahdo qof ehela iyo qof qaraabaa male halka igu haya ilaa maaragtay uu ku dhinto ku mustaqbal beero markii dadkooda adkaysan waayeen oo banaanka keeneen oo maxkamadii la keenana aad maxkamadii dhexdeedii xulfo ka samaysato oo isku dayaan inay arrintaas ku meel mariyaan maxaad ku leedahay ninka cali xalan la dhaho oo arrintaas diiday oo hor istaagay oo cadaaladda muujiyay anigu labada qoloba maxkamadda gabadhan wasiiradda iyo nimanka maxkamadaba dowladda cod dheer baan ku leeyahay nabad haddaa naga rabtaan ama cadaaladda ay sheegaysaa ay run idinka tahay dadka waa in xilka laga qaado wiilkaas oo kaleeto oo cali xalanne la dhaho baanu u baahannahay oo cadaaladda iyo wanaagga ka shaqaynaya maxaad leedahay marka horta nadiifay dad badan oo cadaalad ku dhaqma waa ka buuxaan dowladda dad badan oo wasiiro oo nadiifa ka buuxa baarlamaanka dad badan oo nadiifa ku jira kuwa waxa ku jira aqoonsiinaasiin oo gabadhaas hadda wiilka yarka oo maskiinka awoodiya intaalka u sheegata ku jirta kala ku jirta oo waaridku qayb ma sha Allah iska kaadnay waxa la dhahay waa lawyer kiisiba arinta cali xalane lawyer haduu yahay cali xalane waxaan u sheegaynaa xaqa inuu ku dadaalo xaqana uu iftiimiyo hadduu dhinto xataa wuxuu ku dhimanayaa asagoo toobad iyo meel wanaagsan maray qofka maskiinka u hiiliya maxkamadaha kuwa jooga waaynu idin ehbinaynaa ummad badan boqolaal qofood oo aan garanaya waxaad ku samayseen dhibaato ku samayseen kuwa CID da waa la mid kuwa ciidamada booliska waa la mid kuwa baarlamaanka ku jira qayb baa la mid kuwa dowladda wasiirada ka qayb baa ka mid waa laaluush bay wada qaataan afafka wada waaweyn waa ummadna ku soo itixaamay ayaga waxaan ula dagaalamayna sida hogaamiye kooxeedka nadiifay gabadhan iyo wiilkan baan u jeednaa boqolaal baa xabsiyada ku jira dhibaatadaas boqolaal baa ku jira gabar waxaa la dowladda nafkeeda waxaan leenahay war haddaad waxa aad sheeganaysaa in run idinka tahay war xabsiyada taga oo dad sidaas oo kale iska xiran kanu 6 bilood baaba looga war helay iskumanaan sano ku jira war maxkamadaha dad u dira
oo dad u dira oo khayre iyo xukuumaddiisa waxaan leeyahay war xabsiyada dad u dira soo baara oo dadka aan maxkamadda la keenin bal xaqooda siiya oo dadka ha loo istaago oo dulmi haddaan rabno dowlad inaa war maxay bad noo badbaadaa maxaynu dowlad helaa dulmi baaba ka jira xaakinkii baa buuxa oo maxkamadii baa laga oynaya oo xabsiyadii baa dad dulman oo aan tabar hayn oon ehel haysan agoomaa ku jira hadda fiiri maxkamada haddii cunug agoona hooya haysata lagu xiro yaa ka daba tegaya ilaah baan kugu dhaariye cunugaas meeshaasuu ku dhimanayo war maxkamadaha waxaan leeyahay dadka ilaahay ka baqa oo xabsiyada hala tago oo dadkaan hala soo daayo oo qofkii xaq laga galay xaqiisa hala siiyo oo kuwa xaqdarrada wada naga qaada oo xilka ka qaada xukuumad uma rabne xilkaa nooga qaada hanagu qasbinin nadiifay waa runtaa sidaad sheegtay maxay ahayd toonay waxaan ku darhayaa jimco kasta ama wiil kasta qof kasta guddi inta loo saaro dowladdu ay guddi u saarto wasiirka amnigan u malaynayaa inuu ku shaqo leeyahay iyo wasiirka ii sheeg arrintaanu iyo wasiirka arrimaha gudaha labadoodaasba waa ku shaqo leeyihiin intaanaan dowladda kore aanaan la hadlin waxaa jira niman ka hooseeya ayaga oo ku shaqalahaa jira in ay dowladdu ay u yeelato fiiro gaar ahaaneed in xabsiyada inta la tago dadka ku xiran ee ugu xiran dulmiga ugu xiran in la soo ogaado in dowladdu ay isbaarto ayada lafsadeeda xadgudubka ay dadka ku xadgudbayso qolooyin baa qalinkoodii iyo shaatigoodii iyo magacoodii dadku isticmaalaya ama ku yuus garaynaya ama ku abiyuus garaynaya in la is abiyuus garayana ma ahan waa ka mamnuuc baalkii xiriirka adduunka iyo ceerka caalamiga iyo kan islaamka intaba waxaan u sheegaynaa oo aan kala dagaalamaynaa in ay ninka xaakinka ee xaakin isku sheegaha uu qodobka uu galo in lagu qabto in lagu qaado baarlamaanka ninka ku jira iyo midka sibilka waa in dacwadu markay timaado ay u wada sinaadaan darajada waa inuu meel inta uga soo tago asagoo shibili ah uu qofkan uu maxkamadda uu kula tartamo awoodda la isku takrifalayo hala daayo qof walba qabri baa ka dambeeya dadka itaalka loo sheeganayo hala daayo dadadka wajireedka laga xiranaya hala daayo dadad badan oo xaqooda waxaa jira banaanka ku ooyaya ilaah baan ku dhaartay maxay ay toonay waxa la ii soo diray ciidaas waa ka badan yihiin gabar waxaa la ii soo diray ooyeysa oo gabadhii musqushi ku riday inta la soo qabtay ay sii daysay si ay dhiido ay sii daysay oo maxkamaddu ay sii daysay oo caawa ama habeen dambe aan soo bandhigi doono ummaddu waa dulman yihiin ummadda dhibaataa haysata ummadda dhibaato aan yarayn baa ku wada fadhida dowladduma waxay la dagaashaa midka masuq maasuqa dowladduma waxay la dagaashaa midka hogaamiya kooxeedka dowladduma waxay la dagaashaa waxa baasoo ku soo fatay dowladduma intaasoo daday qabataa macabsiyaday tagtaa waa la wareersanya waa lagu waxaysan yahay dhibkanna haystaawna wax kale ma ahan waa in ay dowladdu ay xabsiyada ku sameeyaan kormeer waa sax waay nadiifoy maasha allah waana kaaga mahad celinayaa gabdhaha iga dambeeyana soo qabo ilaa uu cadaalad helo saasaan usoo fadhiyaynaa waxa weye wiilkaas waa soo fadhiyaynaa madaxan weer cad iyo weer madow ku soo aragno waanu haysanaa xukuumadda mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celinaynaa aniga farxiyaba waxaan leenahay waa in dadkaas xasaanada adeegsanaya oo anagu maxay haytay wasiirnimada adeegsanaya waa in xilkooda ay ku waayaan ilaa taas ay timaado oo dowladdu ay iyada dhexdeeda dulmiga ay galayso dadka galaya iska saarto oo ummadda tusto inay dowladdu ka xun tahay waxa dhacaya wixii ayan ogaan dambi kuma leh laakiin wixii sidan oo kale u soo baxa hadday ku hayso meesha waxa weeye waxaan u aragnaa inay tahay dulmi jira inay tahay oo raali laga yahay aniga lafsadayda ii soo tuur barnaamijka soo socdaan uga qayb galayaa gabdhaha jooga oo gabdhaha muwaadiniinta ana soo qaba bishaare iyo jj iyo gabdhahaasina soo qaba yuusuf iyo dad badan baan u malaynayaa inay meesha joogaan halgamayaal badan baa jooga halgamayaalka soo wada qaba dhammaantoodna waa salaamay midnimo qaran gabdhaha ah wiilasha ah dhammaantiin maasha allah anna waan salaamayaa gabdhaha iyaga quruxda badan soo qaba wadaniyiinta ah adigana allah ku xifdiyo ayagana allah xifdiyo inteena maqan allah xifdiyo dalkeena allah xifdiyo ilaahay isku kaayo soo hanuuniyo dhammaanteen waxaan ku gabagabaynayaa maasha allah magaaladii muqdisho
caawa baraamburkaa noo jaran waa aragtay magaalada muqdisho maalin cadaa laga dhigay nal hadda kan intaasaa ku daynayaa shaqada marka caawa ka soo baxo midnimo qaran baa farxadda ka soo baxaya halkaasaan ka musxaraday maasha allah gabdhahana soo qaba ayaguna laba kelmadood ha ka yiraahdaan salaamullaahi calaykumna adigana sidoo kale abaaye adda sidoo kale adigana sidoo kale macaan badan waa noo caaw insha allah ya abaaye jijaca intaad ku jirta soo dhawaada barnaamijkii kale waa baajiyey awal 2 qodob baan rabay farxadda iyo inaan israaciyo kanaaba mawduuc dhan noqday oo dhammaan waayey oo dadkii maaragtay emotional ka dhigay aad baan horta idinku mahad celinayaa waan u baahannahay inaynu iska qabanno xumaanta waa u baahannahay inagoon qofka ku xadgudbayn inagoo qofka waxa uu leeyahay waxaynaan baran qofka waxa aanu ku leenahay inaan kula xisaabtanno meesha aan qofka waxaan ku leenahay aan kula xisaabtami lahayn baynu isagay ataa ku samaynaynaa taas baa marka ina moodsiinaysa oo ina ilowsiinaysa xaqi aynu lahayn inaynu helno marka gabadhaas waxaan leenahay waa in xilka laga qaado caaway iyo midnimo qaranna waa mashxaradda iyo dabaaldega iyo gabadha iyada iyo falaarti ku taagan tahay iyo axmed guray iyo xawataako iyo sayid maxamed xaggaas uu meesha waxa weeye xornimo dirirka lagaga sheekaynaya kan mawduucan isagiyaa ballaartayba guul iyo gobonnimo walaashay aad baan kuu salaamaya jamiilo waxaan leeyahay marka walaalayaalow dadka xilka aynu u dhiibanay waa inaynu dareensino inay inaga yihiin waxay sumcadda ku heleen waxay xilka ka heleen inuu inaga yahay waxa ay markay wax ordayeen ay u taagnaayeen oo wax ka raadinayeen oo beenta u sheegayeen inuu inaga yahay marka intiina loo adeegsadana waa diidana weliba wiilashayada iyo dhallinyaradayadii aan sugayna inayna xoreeyaan war gumaysaynu ku jiraa anu baddi kama hadlin sababta aan uga hadli waayana anaa og because I know waxa igu jira waxaan uga hadli waaya anaa og mana rabo inaan ka hadlo ilaa maaragta xaalkanu sidan iska bedelo laakiin walaalayaalow gumaysi baynu ku jiraa haddaad ku farxaysaan iyo haddaad ka naxaysaanba rag soomaaliyeed iyo dad aynu mas-uul ka dhiganay iyo dad aynu xil u dhiibanay iyo dad aynu aaminay baana heerka ina gaarsiiyey soo qabsa xabiibo aadan soo qabsa walaashay waan ku salaamayaa soo qabsa aduu kugu soo maqan yahay kiinay abaay waa ku soo qabtay gabadhan buu hadda ku maqan yahay kaa go-ay kugu soo celinaa markii abaay hadday qaban weyso kiin maxamed waan ku soo qabanaa macaanta raalli ahaada dadka badan marka ay dhadhaafaysin hadda gabadhu ku maqan yahay kiinay waa ku soo qabanayaa gabadhan maxay leedahay ayaan anfac waxay tiri tuug farmaajo u sheeg okay adiga waxa weeye walaashay macaan khayr allah ku siiyo bishaaro soo taago gacanta bishaaro daahir bishaaro khaliif gacanta soo taago habo oo ku soo qabanaa wax yar baan u baahnaa inaad ka dhahdo gacanta soo taago haddaa ku jirto marka waxaan leeyahay walaalayaalow waa kaasaa waxaynu ka hadlaynaa inaynu inagu isbadbaadino dhallinyaradeena badbaadsano inagu maaragta hore u soconno markaasaan waxaan caayaynaa bal hadda ilaah baa aynu ku dhaarshay gabadhaas waxay caayaysaa madaxweynihii dalka waxay caayaysaa qof aan lagaba hadlayn qof aan hawshaba ku jirin ma u malaynaysaa marka aakhiro gabadhaas kelmadda ayaa ka cafinaya xataa isma weydiinayso waxay iyadu meel dhiganayso waxay xabiiba abaay qabodee waxay iyadu meel dhiganayso xataa isma weydiin xabiiba aadan qabo abaay adu kugu soo maqan yahay xataa isma weydiinayso bishaaro soo qabso marka waxaan leeyahay walaalayaal bishaaro gacanta soo taago ma ku arko ilaa hadda waxa weeye bal fiiri mawduuc aan ka hadlayno dadka marka noocaasa dad fiyow ma dhihi karaa qofku marka xataa waxa laga hadlaayo hadduu ku caytamo waa wax la garta oo uu caytamo ma arko walaal waa raadinayaa bishaaro khaliif gacanta soo taago dadkii dhan bishaaro soo qabay leeyihiin ma arko bishaaro haddaay waa arkaya hadda ma arko bishaaro haddaad ku jirto gacanta soo taago bliis walaalayaal waxa dhibka ina haysta wuxuu yahay oo ayna haystaa wuxuu yahay in maaragtay abaay kaameradii baad iska xirtay idil cali kaameradii abaay iska xirtay waxay tahay dhibka ina haysta mawduuca xataa laga hadlayo qofka hadduu qofkaa laga hadlayo uu caayo oo dhaho waa dulan ama uu caayo isagoo aakhiradiisa ku seego